ما أها إنا لا تشكيلي ورحنا ودهايو وبركي على ريبريس جريو وبركي على قاتيو وبرا دول وجيديو وبرا سانغدا ورحمان تأفيدين يسين إسكيريا وبرنين وتجمله حتى أنت عاقل إلى محله وصوم المرسيون ما له وبركي أو بيش واقنا نبعي كرنا مالها أو بكاسدك دورتي ومدي بعد عض أو كذا شيء اسكو جرو أيا إن اسكو ويمي لا يمالين أنا ده مثلا dadka aan matalo sida hadda leeyahay yeerto kala meeshii leeyahay baalcada u dhaxeeyay dad gaar ah u dhaxeeyay marka wax badan in la isku xusliyo ma aha oo la dhaho maxaa la dhahay dad gaar ah wati dan gaar ah wato Allah u naxariisto wabarkeeni naxariistii janna Allah ka waraabiyo waqtigii baalcada duuba lahayd wabar waa wili markii la gaaro waqtigeeda aan ka hadalno duruufta hadda jirta ugu baxnaa iyo dadkaas isku keenna ayaa u magacaaway caaqilkan waxaan filayaa in dadaal dheeraad ah la muujiyay inaan wax badan aan isku daynay inaan dadka isku keeno inaan dadkeena mideyno ma nihiin dad u socdo qaybin magaca maanta aan wato waa magaci baadacada magaca ugu dhabaan wataa guud waxaan ka ahay baadacada nin iga tirtiraaya ma jirto nin iga jecel ma jirto inay beesheedu wax noqoto aniga idinka jecel inta kale oo dibadda joogta anaa ka jecel annaga dhaxana u jiifanay xabadaan u kor joognay qaraxaan ag joognay intaasoo dhan waxaan dush u qaadanaynay faa'iido gaaran ku qabnayna ma jirto kuwa badana waxaa aaminsan in tuuba cabitaanna loo geliyo oo meeshaas ka dhuuqayno waxaan leeyahay walaalayaal welcome kasoo qayb gala arka dhulkiina iyo dadkiina u imaada u dhinta waxaan rabaa oo kale inaan idinkala hadlo waxaan maqlaysin inta badan beledweyne iyo jooga reality markaa loo hadlo waxa socdo waa process dawlad lagu dhisaayo laba gobol la isku keenayo nacam waa dad waa lagu sameeyay oo qalad waana laga galay laakiin qofka bini aadan qalad markuu ka galo ma qofkii inaa la xisaabtantida mase inaa gees istaagtid oo dhahdid kuma jiro aniga banaankaasaan taagnaanaya warkaadaba ma rabo walaalo wax lagu waay wada tashi wax lagu waay wada hadal wax lagu waay Soomaaliya dad dhaqan waxa uu leedahay inay geedaha hoosooda isla fadhiistaan la isla gorgortamo dad ay wax nagala jiraan dad qalad naga galay dadkaas beledweyne ma fadhiyaan beledweyne dad gaar ah fadhiyo oo fadhiistay laakiin dawladii wax nagala dhaxaysa xamar ay joogtaan ma la xisaabtano oo ayaga la hadalno oo ayaga address garayno ما أهين إنا بحنا أو مال فريسن أو دهنا فدي إنا وحنا إيمانين فدي وقرنة إني والبنيكو كورد بدني هينه وكم مقع يمقال ديريه Somalia وعرق تسير وحنا براسلو Somalia كما ما نفد وقرنة لكن إنا تهديد absolutely أنا قف من هدلاي مسبيناي وزير لم هدلاي مدحوين لم هدلاي ninka adag hortaayo dhirfay dadka xukunka ay ka haysto xukunka dinka haystana waa inaa kula xisaabtanta asaga isba geeyno qofka meesha oo madaxweyne ma noqonin wasiir ma noqonin dadoo مثلا وإنا الله حسابته أو يماذا وحياها عن كي يمد هذا التوبركة وحكمت هاي حكومة سيال الله حسابته ما حساب تنكيني ماشو نجير وانا قالان ولا ريال ماشو نجير أن أدنو أنك دوننو أو تركي وحنا قلت حيانا على حسابتنا لكن دور عليه إنا وقت جاي نقول منه مرحلة لما لا يعرفت وميانا ندك ودنينين المساكين تأوباهن أو مدح أنت اللي تقول مدح الميلاه للسراي أما أن راشد هذي كريم بيلان تهايسو بيرهو ذي قلالين ورقواس ما أنت وحباهين إلا تاج مرات قاركود وحيابا ألاقي لهم وحالو قارتا حق درد وحاكو قاري حق ولو جيدا أنا كدنبي مجلين تكلنا مجلين وحاكو فرح سنة ما أنت إذا مكفاني كارو إن قفل كرب تقري دول شيء إي تاريخ ذي يعني نهان إنك صدق بدن أو ضد كان كميد إعلان وحبال لو سودي ورنبضون هدان نقضي مو حبال لي سودي بي marka waxa loo baahan yahay in la ogaado meesha oo wax u wadno intee wax ka keenayna inteen wax u wadna waxa la rabaa in la analysis gareeyo oo la fiiriyo oo la fikro oo la yiraahdo warsaan wax ku heli karna dhalinyarada waa dadkii alxamdulillah maanta waxa u jeedaa dhalinyaro firfircoon inay cid u soo baxday waxa u jeedaa dhalinyaro isku ujeedo
oo haysato idinkaa mustaqbalkiina gacantiina ku jiraan idinkay tahay inaad u istaagtiin danta aa leedihiin waxaan si gaar oo gaara aan waan u dirayaa dhalinyarada inay u istaagaan inay ogaadaan meesha laga jiro iyo meesha loo socdo iyo meesha wax ugu maqan yihiin haddaadan idinka hadlin haddaa idinka istaakulaynin haddaa odayaashii laga yaaba si inay wax u arkaan aa idinka tusin waxaa laga yaabaa inaan meel cidle aan kusoo baxno marka waxaan idinka goobaadinayaa inaan la kaco yar iyo weyn ardan iyo curoole gabar iyo wiil inaan isweydiino war maxaana haysto intee wax noogu maqan yihiin maxaanse naga maqan annaga markaa caaqilka meesha layskugu yimi baadacaddaa ii keensatay waa laka ajiibay because ani waxaan matalaa ummadda aan mithaal u ahay intiinaan meesha joogto sidaa maanta idinkaga ajiibaan uga ajiibay sababtoo markii laysku keeno meel layskugu yimaado waxaa loo baahan yahay inaad muwaaqif la sameeyo intaasoo qof waxay isku soo raacday nin hor istaagi kara ma laha ninkii waa diidi dhaha xataa asagay u taalaa laakiin ninka hor istaagi karo ummad inteeda badan waxay isku raacday ma jiro isku raaca markay isku raacayna waxaan wax kale oo nasiib u yeeshay inay xildhibaanadii kale ood caleemo saarateen nin kamid oo meeshii joogin ayse dalka ka wada maqnaayeen markii dagaal iyo jihaad ugu jiri marka qofkii idin halgamayene inaad qabsatiin dadka kale la xisaabtanka u baahan la xisaabtama intaasaan walaalahay ku waadinayaa waxaa kaloo rabaa inaan fariin u faro bahweynta Gugundhabe walaalayaal waxaa loo baahan yahay inaan jiifka ka kacno waxaa loo baahan yahay inaan isku nimaadno waxaa loo baahan yahay inaan midowno oon danteena ka fikirna dan dad kale leeyahay iyo duruufo kaleenta aanala dhex gelinin because annaga waxaan nahay dad la qari karo ma nihin dad degaan weyn degan dhul weyn degan taariikh leh Soomaaliya dowladihii hore kaalintaan kagala jirno waa la ogyahay magacayna iyo sumcadeena waa haysanaa annagayna kuugu xiran tahay waa inaan fadhiga ka kacnaa si la yaqaanane aan isugu ibaano oo isu tanaasulka bataa oo dulunka aan iska bixina waa mahadsantihiin aad iyo aad ay farxad iigu tahay inaan maanta meeshaan kasoo qayb galo walaalayaal soo dhawaada aad iyo aadaan idinkaga mahad celinaa mar labaad iyo mar saddexaad waa mahadsantihiin dhammaantiin